subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Asiya Cumar oo ahayd hooyo Soomaaliyeed oo 27 jir ah ayaa isniintii lagu dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska kadib markii uu tooreeyay saygeeda oo lagu magacaabo Aadan Daahir. wariyaha VOA ee London Ridwan Xaaji Cabdiwali ayaa dilkan ka wareystay Ayaan Cabdullaahi Macallin oo ku sugan magaalada Bristol, qaraabo dhowna ay yihiin marxuumadda Asiya Cumar iyo odageedii Aadan Daahir. alxamdulilah horta amara dhacay qadar radiyaa dhacday gabar walaashay iyo walaalkay inay isku sawday oo ahaa wiili gabar isqabo alxamdulilah shukr bil caalamiin sida ku dhacay hadaan ku sheego kulay laba qof oo isdagaasho waxay isku qabteen laba shay kor qof ogaan kartan dhexdooda ku jirta malahan oo meeshi waxa ay maartay midi gabadha laba midiyooda ku taalo 2 cm camal dhinacan oo bidixda iyo dhinaca kale to midigto iyadana wax yar ilaa 2 cm laakiin gudaha xoogaa ilaa 3 cm u sii gaarayso alxamdulilah taas marka midigta ugu dhacdaa dhimashada keento oo halboolay geystay wax kale oo midi iyo dhaawac kale gabadha ku dhaca malahan amarka ilaahana ku yimid anagana amarka ilaahay iyo qadarta aan sanahay waa ka xumahay dilkaas sabir iyo iimaan allah idinka siiyo marka hore laakiin waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo ma la og yahay ama ma ka war haysaan ilaa iyo hadda sababta uu Aadan Daahir u dilay xaaskiisii Asiya Cumar wallahi lama sheegi karo xoogaa wixii yar isqaladaha waxaa ka dhex dhacay laba gabadh kale iyadana ka sankeeyay oo Jamaal la dhahayo wiilka la dhalatay asiidnimadii marayteen oo amal ahayd hal mar ay qabteen isku qayqayliyeen Aadan markaas uu dhex taagnaa wuu kala celiyay gabadha walaashiisu banaan ku soo eriyay asigii xaaskiisana dib ay guriga ugu noqdeen kadib wax dhex dhacay ma sheegi karo 40 daqiiqo kadibna gabadha marka qadartaa ku imaasabo su'aal shaqo gabadha meeday ahayd booliisaan u imaaday 10:30 oo marka dagaalka markuu ku imaaday labada gabdhood booliiska iyadaaba la hadashay marxuumadda Allah u naxariistay oo dhahday wax dhib ma jira meesha aniga gabar walaashay dagaalna wayna tagtay oo nisma hasban anaga gurigeena galina koolkii labaad oo dadka diriska ay maqleen qaylada intee maqleen u waceen oo timida ka soo wareegtay marxuumaddan amarkii ku yimid saas ku dhimatay waayahay wax marka ka dhaxeeyay oo khilaaf oo aad ka war haysaan ama aad kala sheekaysatay gabadha ma jirta maadaama aad ehel tihiin sidoo kalena aad ii sheegtay inaad tahay dadkii ugu horreeyay ee meedkeeda arkay maya wax khilaaf ah oo ka dhaxeeyay labadaas ilaahay uga ogaan kara anaga ma ogeyn ayagoo nabad qabo oo gabadhaas laba gabdhood oo kaliya oo yaryar oo ayagana adeerkay dhalaali joogay way ka soo tageen dad gurigooda galay ahaayeen xataa gudaha ma sii galin gabadha meed jikadu ka dhex dhacay irida koob marka laga gal gurigooda jikada la galaa jikaday isku qabsadeen amarku ku dhacay gudaha xataa looma sii gudbin oo haatan awraab ka soo wareegtay teenka oo gabadhii kala tageen iyo teenka gabadhu dhimatay meeqa sano jirtay markaa marxuumadda Allah u naxariistay Asiya waxay jirtay 27 jir ay ahayd waa gartay meeqa carruur ay ka tagtay waxay ka tagtay 2 carruur ah wiil iyo gabar wiilka 8 sano hadda last month noqday gabadha 4 years imise sano isqabeen markaa ama ay wada noolaayeen intaad ka warayso 9 years 9 sannadood sorry wax khilaafaada oo horay u dhex maray oo aad la socotiin miyaa jira way iskhilaafeen oo dad isqabo of course lama oga dhihi karo way isku dhaceen laakiin isku dhac oo dagaal oo gacan iyo dib oo gaar markaas lagu soo baxay ma jirin laakiin waxyaabo maraj family close aan oo qayro xiriir iyo caro iyo dagaal way dhiceen laakiin wax gacan ah oo markaas loo soo baxay ama dhakhtarkii gootigo kale kama dhexdhicin waayahay marka Aadan Daahir dabcan xaaskiisu dilay Allah u naxariisto laakiin wax dhibaato ah ama xanuun ah oo asaga laftirkiisa uu qabo waad ka waraysaan miyaa jira maadaama dabcan dil la geysto aysan sahlanayn aadan horta wax jiro gooni oo maanta oo dhihi karo waa saas ma ahayn alxamdulilah shukr bil caalamiin last 2 years uu iska yara xanuunsanaa xoogaa iska barabalemaati oo wadankaan uga imaaday uu shaqaysanayo laysankiisii oo laga ceshtay dareebalnimada 3 years ban laga dhigay adi xoogaa waxyaalahaas islaha hadlo xoogaa stress iska hayn laakiin wax oo dhul la yaala ma aysan haynin xoogaa waa annaga dhidhinaha aadan saad u noqday sidii hore maahan wuu isbedel maahan wax oo meel la yaala markaas ama uu daawooyin u qaadanayo ma aysan haynin waayahay dadka waalidiinta u ahaa qoyskan iyaga ma la xiriirtay siduu yahay dareenkooda dareenkooda maasha allah aad u fiican yahay annaga dad islaam oo diin ahaa nahay labada gabdhood oo ilmaha kooda dhintay waaye laba gabdhood oo isla dhalatay waaye labada oo isku dhigtay waaye alxamdulilah iimaankoodayna qabaan walaa way iska soo horjeedaan waa isla fadhiyaan ilaahay qadartaan waa laba geeriyood waa ilmaheenii oo isdilay labaduba haddii ku yihiin
taasi waxa ay ahayd ayaan cabdulaahi macalin oo qaraabo la ah hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aasiya Cumar oo saygeeda uu ku dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska. Waxa ay khadka telefoonka ee Bristol ugu waramaysay wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.